ganacsi kasta oo guulaystay oo ballaadhay waxaa jirtay oo soo martay waqti uu dhaxeeyay guul iyo guul darro balse dadaal dheer iyo samir kabacdi uu gaadhay heer lama jeerto oo qof kastaaba ku hamiyo inuu samaysto ganacsi kaasoo kale ah. halkan waa caasimadda Somaliland ahna xarunta ganacsiga ee gudaha Somaliland. ku soo dhawow 5 ganacsi oo dihin waad hadda bilaabi kartid. leebaatooyinka ayaa ah mid ka mid ah ganacsiyada fudud isla markaana si wanaagsan looga shaqeysan karo lagana sameyn karo lacag aad iyo aad u wanaagsan. halkiis wax ku yara leebaatooyin aad iyo aad u tiro badan oo runtii ay ku xidhan yihiin dhammaan gawaadhida ka shaqeysa amba lagu wato gudaha magaalada. hase ahaatee ma jiraan leebaatooyin casri ah oo hadda dabooli kara dhammaan baahiyaha aasaasiga ah ee ay u baahan yihiin dhammaan gaadiidka kala duwan ee ka dhex shaqeeya ama dhex goosha gudaha caasimadda. runtii waxaan odhan karnaa waxa weeyaan waa fursad aad iyo aad u ballaaran oo isla markaana keeni karta horumar dhaqaale oo wanaagsan qofkii ka faa'iideysta. baahida loo qabo marista gawaadhida guud ahaan magaalada ayaa ah mid runtii aad iyo aad u sareysa markasta maadaama ay jiraan 2 qodob oo markasta keenaya in gaariga la meedho. tusaale ahaan waqtida roobaadka waxaa jira dhooqooyin fara badan oo soo gaadha gaadhiga isla markaana ay keenayso in gaarigii hore loo meedho. waqtiyada aanu jirin roobku waxaa jira siigo amba wada la'aan ka jirta magaalada oo sababaysa in markasta gaariga uu soo gaadho dhas fara badan iyo siigo gudaha u soo gasha ama dusha gaariga fuusha taasoo ay keenaysa gaariga si joogto ah loo meedho maalin kasta ama 2 cisho hal mar. ganacsiga marista gawaadhida ayaa ah mid runtii aad iyo aad u sii kordhiya guud ahaan caalamka oo dhan. tusaale ahaan aynu soo qaadan waddanka Mareykanka ayaa sanadkii 2021 waxaa lagu qiyaasay ganacsiga car washka 14 bilyan oo dollar iyadoo la filayo 5 sano ee soo socota ilaa iyo 2027 laga gaadhayo ay noqon doonto lacag gaadhisa 17 bilyan oo dollar. leebaatida adduunka ugu weyn oo ku taalla waddanka Jarmalka oo loo yaqaano Master Wash ayaa waxa ay meedhaa 300 oo gaadhi saacadiiba amba 4,000 oo gaadhi maalin kasta. waxaana ka shaqeeya dad gaadhaya 100 qof oo shaqaale ah. leebaatooyinka ama car washka ayaa ah ganacsi runtii aad iyo loogu yaqaano ragga inay inta badan ay ka shaqeeyaan. se ahaatee waxaa jira ganacsiyo noocaas oo kale oo ay qabtaan haweenku. fikradda labaad ayaa ah jewelry amba waxyaabahan dumarku ay isku qurxiyaan gaar ahaan kuwa ay u xidhaan xafladaha amba aroosyada amba wixii lamid ah iyo sidoo kale qurxinta guryaha home decorationka. agabkan runtii ah agab runtii aad iyo aad lagu baahi badan yahay guud ahaan geyigeena ayaa ah mid mar walba loo baahan yahay. qiimo ahaan waa agab runtii ku soo istaagaya qiimo aad iyo aad u jaban haddii aad ka dalbato wadamada runtii aadka looga soo saaro ay ka mid yahay China isla markaana aad ku iibin karto qiimo macquul ah oo aad iyo aad u wanaagsan. qodobka labaad faa'iidada aad ka heli karayso jewelry-ga ayaa ah wax ma aha yacni ka expire garoobaya amba ka dhacaya waa waxaad iibin karto anytime loona baahan yahay haddii noqoto waqtiyada xafladaha amba ciidaha amba xilliyada tusaale ahaan dadku ay samaysanayaan muxuu ahaayey bandhigyada ay ku qurxiyaan guryaha amba shakhsiyad nafahoogaba. haddaba waxaan isweydiinaynaa maadaama ku sheegan yahay ganacsi ka mid ah ganacsiyada fudud isla markaana aad qiimo faa'iido fiican ka samayn kartid runtii waxaad ku bilaabi kartaa anywhere amba meel kasta oo aad joogto. runtii adduunka maanta waxaa noqday digital amba social media ayaa hogaaminaya wax kasta oo la qabanayo ama wax kasta oo la hogaaminayo. macluumaadka ugu badan ee dadku ay ogaadaan bartaas ayay ka helaan. sidaa darteed haddii aad dalbato oo aad guriga ku iibso alaab fiican oo loo baahan yahay marka aad baadho isla markaana aad keento waxaad kaliya u baahan tahay inaad ku soo xayeysiiso page aad ku samaysato Facebook-gaaga aad ku soo barnaamijyayso adiga oo bixinaya qadar yar oo kooban oo lacag ah isla markaa $5 $10 aad ku soo barnaamijyayso agabkaagii aad iibinaysay. fadlan ha ilaawin inaad subscribe iyo like saarto muuqaalka. fikirkeena saddexaad ayaa ah drinkska amba cabitaanada runtii maanta aynu u baahannahay oo ah mid ka mid ah ganacsiyada small businesska ah ee aad iyo aad lagu baahan yahay guud ahaan magaalada. goobaha sharabka laga cabo
oo ah runtii meel dadku ay soo fahmayaan hadda in sharaabka naturalka ah ee laga sameeyo khudaartan dabiiciga ah ay yihiin mid faa'iido weyn uu ka helayo jirka iyo muxuu ahaye caafimaadka intuba. runtii fikirkan waa fikir aad iyo aad u wanaagsan isla markaana anfacaya qofkii xiiseynaya inuu ku shaqeeyo arrimaha khudaarta iyo vegetables-ka. run ahaantii waayada dambe waxa runtii aad iyo aad soo shaabaxday in ay jirto baahi weyn oo loo qabo sharaabkan isla markaana ay dadkeeni aad u soo fahmayeen in sharaabku uu faa'iido weyn u leeyahay jirka iyo caafimaadka iyo maskaxda intaba. sidaa daraadeed waa fikrad runtii aad bilaabi karayso isla markaana aan kaga baxnayn wax kharashaad aad u badan oo aad kaliya u baahan tahay khudaartii iyo mashiinkii lagu shiidayay iyo qof shaqaale oo kaaga shaqeeya. haddii aad adiguba leedahay xirfadda shiiditaanka sida wax loo shiido aad ku wanaagsan tahay aad adiguba iska bilaaban kartid. waxa kale oo aad u baahan tahay meel location runtii aad ku samayso alaabtan isla markaana aan kaaga baxnayn wax kharashaad kale oo intaa dheer. haddana hore ugu socono fikirkeena afraad aynu maanta kusoo qaadanayno barnaamijkeenan kooban ayaa isaguna waxa weeyaan current amba karinta gawadhida. karinta gawadhida ayaa ah fikir runtii aad iyo aad u wanaagsan isla markaana qofkii maanta lacag haysta uu si fudud u bilaabi karo isagoon u baahnayn xafiis iyo runtii muxuu ahaye iyo shaqaale iyo howlo kale oo aad iyo aad runtii qofku is leeyahay waxa kaga bixi kara kharash aad u badan. kaliya waxaad u baahan tahay gaadhi amba gawaadhi runtii aad ku maalgeliso lacagtaad haysatid iyo systemka GPS-ka oo aad ku xidho gawaadhidaada sidaa darteedna aad ku bilowdo karinta gawaadhida. kaliya maaha waxa aad ka shaqaynaysaa karinta gawaadhida laakiin businesskani waxa weeyaan faa'iido gaara ayuu wataa oo ka duwan ganacsiyada hore ee aan soo sheegnay, taasi oo ah in aad ka dhex bilaabi karto isla karinta gudihiisa sarfisyo dhammaystiraya amba ka caawinaya in ay si fiican u kori galaan oo ay ka mid tahay car decoration oo ah ka lagu qurxiyo gawaadhida xafladaha ama munaasabadaha gaarka ah. taasi waa qodob runtii fudud oo aad ku dhex bilaabi karayso service-kaaga. sidoo kale waxaad ku dhex samayn kartaa logistics oo ah karinta gawaadhida adigoo samaynaya adeegyo u fududeynaya shirkadaha waaweyn ama kombaniyada ama hay'adaha caalamiga ee waddanka ka shaqeeya inay sameeyaan isku socod marka ay rabaan inay alaab geeyaan tuulo ilaa magaalo. value-ga ama qiimaha karinta caalamka ayaa ah mid aad iyo runtii u sarreeya isla markaana lagu qiyaaso in gaadhayo 100 bilyan sanadkan aan ku jirno iminka 2023. sidoo kale la filayo inuu kordho 7.1 ilaa 7.8 2027 marka la gaadho. fikraddeena ganacsi ee ugu dambeysa ayaa ah tashanaad oo ah vlogging amba blogging. runtii labada eri waa laba eri oo isku dhow laakiin midna uu yahay video in qofku diyaariyo si uu u soo post gareeyo channelska social mediaha YouTube-ka, Facebook-ka, TikTok-ka ama meelaha la midka ah si qofku lacag uga sameeyo amba uu sameeyo blogging oo ah in qofku sameeyo article ama qoraallo muhiim ah ku saabsan mowduucyo muhiim ah oo is leeyahay waxay anfacayaan dadka audience-ka ah ee isagu muxuu ahaayay ku xidhan. runtii fikradan waa fikrad runtii marka laga waqtigan casriga aynu ku jirno shaqaynaysa isla markaana aad iyo aad runtii active u ah. intaas ayuu fiidiyowga ku egyahay weegan. Wad mahadsantihiin.